Assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawade. Magaalada New York oo badanaa loogu yeero si fudud New York waa magaalada ugu dadka badan ee dalka Mareykanka. Waxaana sidoo kale qiyaas la sameeyay sanadkii 2019 dadka ku nool magaaladaasi ay gaarayeen 8,336,817 isla markaana loo qaybiyay qiyaastii 300.6 mayl laba jibaaran oo ka dhigan 784 kilomitir square. Magaalada New York sidoo kale waa magaalada ugu dadka badan dalka Mareykanka waxayna ku taalaa cirifka koonfureed ee gobolka New York. iyadoo ku dhawaad 20 milyan oo qof ee ku nooshahay aaga tirikoobka ee magaalada iyo sidoo kale ku dhawaad 23 milyan aaga tirikoobka ee loo isku daray dadku ayaana ka dhigan kuwa aad ugu badan ku noolaanshaha magaaladan aan ka sheekeynayno. sidaas aawadeed ayaa magaaladani lagu tilmaamay inay tahay magaalada ugu dadka badan adduunka. Magaalada New York waxaa lagu sharxay inay tahay caasimadda dhaqan-dhaqaalaha iyo sidoo kale warbaahinta adduunka oo si weyn u saameysa ganacsiga, madadaalada, cilmi baarista, tiknoolajiyadda, waxbarashada, siyaasadda, dalxiiska, farshaxanka iyo sidoo kale isboortiga. sidaas si la mid ah waa magaalo muhiim u ah xiriirka diblumasiyada caalamiga waana sababta ay mas'uuliyiin badan ay u doorteen ku noolaanshaha iyo sidoo kale waqti ku qaadashada magaaladani. magaalada New York waxay ka kooban tahay 5 degmo mid walbana waa degmo ka tirsan gobolka New York. magaalada ay sidoo kale nabaaxigeeda waxay ka kooban tahay irido horudhaca ee socdaalka sharciga u ah dalka Mareykanka. ilaa 800 oo luuqadood ayaa loogu hadlaa magaalada New York taasoo ka dhigaysa magaalada ugu luuqadaha badan adduunka. New York waxa ay hooy u tahay in ka badan 3.2 milyan dad deegaan ku ah una dhashay meelo kale oo ka baxsan Mareykanka. laga soo bilaabo sanadkii 2019 aaga weyn ee New York waxaa lagu qiyaasay wax soo saarka magaalada ugu badan oo ah trillion 2.0 haddii xaafadda weyn ee New York ay ahaan lahayd dal madax bannaan waxay ahaan lahayd dalka 8aad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. haddii aad ku cusub tahay channelka wana ku soo dhaweynaynaa subscribe saaro wadna ku maasan tahay daawashada muuqaalkan.